shacabka iyo madaxdaba oo ugu horeeya madaxweyne Ismaaciil Umar Geele oo idin ogolaaday inaad si nabad ah sharaf leh aad uga mid noqotaan dadka reer Cali Cadde iyagoo idinku soo dhaweeyay gacmo furan walaaltinimada ay idin muujiyeenna ay idin la qaybsadeen intii yareed oo ay haysteen waxaan leenahay way mahadsan yihiin awaalkaasna waan u haynaa waan ogahay in qofku marka uu qaxooti yahay ay dhib badan tahay waan ogahay dalkaada hooyo marka aad ka maqan tahay inay tahay wax aad u dhib badan laakiin qaxootinimadu ceeb maahan waxaa keena dan waxaa keena duruuf waa waqti aan weligiis jirin oo ku meel gaar ah oo laga baxo waa aaminsanahay inkastoo halkan aad nolol fiican ku haysataan amni aad ku haysataan qaarkiin laga yaabo inay shaqo ku haystaan xuquuq aad leedihiin haddana marka ugu dambaysa meesha aad ku heli kartaan nolol waarta waxay tahay dalkiina hooyo marka hore waxaan rabaa horta inaan idiin sheego anigu intaanan ra'iisul wasaaraha noqon ka hor halkan waxaan xasuustaa hay-addii aan u shaqaynayay markaan idhi meel Cali Cadde la yidhaha ayaan xafiis ka furanaynaa waxay yidhaahdeen halkaas dhaqaale loo heli maayo hay-adaha deeqbixiyaashana wax bixin maayaan laakiin maadaama halkan aan ku ogaa dad Soomaaliyeed hadafkayga markaana uu ahaa geeskan Afrikada soke oo aan anigu ka shaqaynayo oo mas-uul ka ahaa meel walba oo dad qaxooti ah oo Soomaaliyeed ay joogaan inaan wax gaarsiiyo sidaasaan horta waagaas ku imid meeshan la yiraahdo Cali Cadde waxaan aad ugu faraxsanahay shaqadii aan bilownay inay sii ballaaratay dadkii Soomaaliyeed oo ila shaqaynayay inay halkan qaarkood fadhiyaan qaar kalena ay ku soo biiraan idinkana ay muuqatay in noloshiina ay inta ka sii hagaagsan tahay runtii waa wax lagu farxo marka anigoo ra'iisul wasaarihii Soomaaliyeed ah oo imid Djibouti waxay la noqotay ceeb inaan ka noqdo anigoon idin soo salaam sababtoo ah dowladdu uu hogaamiyo madaxweynaheena Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo sidaad ogtihiin waa dowladda shacabka maadaama ay tahay dowladda shacabka idinkuna aad tihiin qayb ka mid ah shacabka Soomaaliyeed idinka ayaa xaq u leh dowladnimada sidaas ayaan idinkugu imid inaan idin soo salaam intaas ka sokow waxaan rabaa inaan maanta idinkugu bishaareeyo sidii aan ra'iisul wasaaraha u noqday oo aniga madaxweynuhu u bilownay inaan dalka ka shaqayno dad badan oo Soomaaliyeed oo dalka dibadiisa ku nool ayaa ku soo laabtay dalkii waxaa yimid qaxoot dad badan oo maxaabiis ah oo ka keenay Ethiopia qaaran ka keenay Libya qaaran ka keenay India qaaran ka keenay Seychelles qaaran ka soo wadna Tanzania qaaran ka soo wadna Oman waxaan go'aansanay dadku siday u kala dhib badan yihiin inaan ku bilowno waxaan ka shaqayn doonaa in qof walba Soomaaliyeed oo dhibaataysan aan isku dayno haddii Ilaahay yiraahdo inay gacanteena gaarto inta halkan aad joogtaan maadaama aad iskuulle haysataan waxaa la rabaa carruurtiina inaad iskuulle u dirtaan waayo dalkiina wuxuu marayaa meel wanaagsan mar dhowna waad ku soo noqon doontaan marka aad dalkiina ku soo noqotaanna waxaa laydinka rabaa carruurtiina inay leeyihiin xirfad si ay isla markiiba ula falgalaan dalka qaybna uga qaataan waxaad maqli doontaan kuwo badan oo facebookyada wax ku qora ama idaacado ka hadla oo yidhaahda dalkiina wuu xun yahay dalka Soomaaliya meel xun buu joogaa waa kuwii 28 sano dalka dumiyay ha dhageysanina waxaan idinkugu imid anigoo ra'iisul wasaarihii Soomaaliyeed idinkoo qaxooti halkan Cali Cadde ku ah waxay tusaale ka tahay isbeddelka dalka Soomaaliyeed ku dhacay
sababta aan idinkugu mid waxay tahay inaan aaminsanahay inaan ra-iisul wasaarihiina ahay aan ahay ra-iisul wasaare soomaaliyeed aanan ahayn ra-iisul wasaare muqdisho ama ra-iisul wasaare qolo waxaan aaminsanahay in xanuunkiina xanuunkeyga yahay farxaddiinnuna ay farxaddayda tahay soomaaliya way ka qiimo badan tahay 27 sano lasoo dhaafay way ka sharaf weyn tahay sida hadda naloo yaqaano way ka macno badan tahay waxa ay dadka iyo dunidu u garanayaan waxaa soo socota soomaaliya cusub oo adeertii adigu aad ku soo kortay ah waxaan ku rajaynahay ku qalbi fiicanahay hubaa ku niyad fiicanahay in mar kale la dhihi doono soomaaliya waa dalka afrika ugu horumarsan waa mahadsantihiin.